lacagta miisaaniyadda ku jidha annaka dawladda federaalka oo jirta waxaan naga soo gaaray lacagta 450 kuna hal shilin oo kale naga soo gaarin waxaan kaloo ku sheegayaa xisaabirka markaan sameeyay anaa saxiix xisaabirka waxa la soo weydiiyay lacag $20,000 oo la yiri waxaan siinay baarlamaanka arintaas runtii aad baan u xumaad inay soo mari weydo dib raac baan ku sameeyay baarlamaankan tagay waxaan ogaaday lacagta 20 kuna inay ka timid mar gudoomiyaasha baarlamaanku oo jawaari intuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ay isugu yimaadeen muqdisho in dawladda federaalka iyo baarlamaanka madaxda baarlamaanka ee waqtiga jidhay iyo kuwii maamul-goboleedyadu la isla gartay dawladda federaalku ee $20,000 siiso maamul-goboleedyada gudoomiyaasha baarlamaanadooda si ay shaqadooda maalmeedka ah ay ugu wataan lacagtaas marka iyada ah xisaab ahaan nama soo gaarin laakiin baarlamaanku wacdi waxaan ku sheegaa Faysal lacagta dhabta oo naga soo gaadhay ama miisaaniyadda ku jidho ama ka wax banaatee waa 450 waayahay ta miisaaniyadda ku jirta ee ku qoran Puntland ma ka waraysan oo walaal miisaaniyadda federaalka lacagta ku qoran Puntland in dawladda federaalka ku qabto ma ka waraysan ku qabtaa ma jidho walaal ma jidho kuma qornamaya ma jidho waayahay